السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal insha Allah taala walaalyaal salaada casar baan tukanay insha Allah salaada casar baan walaalyaal tukanay xaramkii baan joognaa alxamdulillahi rabbil caalamiin shargaray insha Allah shargaray waanigina ka ballan qaaday insha Allah inaan soo galayo waqtigan halay oo dhan maana seexan laba hurdo isku halay marka insha Allah khayr Allah ka dhigo shargaraya insha Allah walaalyaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب أبوه الرسم هذا وحي الكذب وبلابننا إن شاء الله تعالى. وحن سيدي شيخ يا ولا ليال. إلهي ما تكلم سبحانه وتعالى مر والبقى. دتكو هجر دامة إيو قرن كإيو فرح هذا إيو وحي قفك للدنيان إيو إلهي سبحانه وتعالى وحوسيه وكلا شاء. إلهي أنا الحمد لله هداية وسيء حتى بيش أنا كلاه الله وصفاء يمرو وقرني صفاء يمرو وحرم سلادي دور كما كنت كذي عصر كما كنت كذي بعد العصر وهذا أنا وصاقل حالي وقت الدمان ربي أنا صاقل ويدين صاقل وحقيقة ترتعاني تفسيره لكن وقت جيبا وها وقت ولا ليالوها ضمبه ما عشتي بيسوق جاري yar saaxiibkay ayuu soo sheegay oo Puntland marka iga daaya please iga daaya wax yar inta ku jiro iga daaya please waan baryayaa iga daaya please iga daaya hay soo wicnana inta wax yar ku jiro wax yar way insha Allah taala marka walaalayaal waqti dambe xalay igu noqotay waxaan isir dadkii Soomaaliyeed kuma jiraan cid ku jirta ma jirto marka yaad u sheekaysaa yaad wax u sheegtaa yaa maarta marka insha Allah taala xalay ma hurdooreygama soo dhicinba ma ana seexan hurdoo ma ana lid walaalayal waa bilaabanayna insha Allah taala walaalayal horta ilaahay xaq ahayna fahamsiyo ilaahay subhanahu wa taala xaq ahayna fahamsiyo walaalayal horta klibka leesla dhex wareegayo oo aad aragteen oo aad social media ku aragteen waa hooyaday dhashay waa sax waa xaqiiq waxa weeyaan hooyaday dhashay walaalayaal anigoo yar oo aanan ku bagaraasan ba aabahay dhintay markuu aabahay dhintay kadib reer abtigay waa reer koonfur galbeed adeeraday iyo eedooyinka iyo wixii baa ila wareegay kadibna boosaaso iyo halkaas anigu reer boosaasaan ahay familigeygi iyo dadkayga kullu halkaas ay joogaan halkaas aan ku soo koray ku soo barbaaray magaaladeedii ah hooyaday waqtiga iyo waayahana kala kaxeeyay ceeb male dib male oo waxa weeyaan qofku hadduu agoo noqdo oo qof yar iska yahay oo waqtigaasi uu saasi ay u dhacdo waxa jirta waqtigan ka soo kabanay oo ka soo weynaaday ayaan hooyaday soo raadiyay hooyaday dhashay way qof kasta hooyadii waa u jeceliya waa soo raadiyay waxaan imi xamar tabtaan xamar imaanayay waxay ahayd inaan hooyaday arko dinsoor baan ugu tagay meel yar been idin sheeg ma 2000 bay ahayd dawladda Cabdiqaasim Salaad Xasan waa soo baxay rafaadkaas soo maray iyadoo waliba dhulku uu rafaadsan yahay oo xaaladdu ay sida ka adag tahay ayaa halka u soo maray anoo wiil yar ah waxaan xusuustaa waxaan ugu tagay magaalada Dinsoor baan hooyaday ugu tagay iyo adeerkay ninka qab walaalayaal hooyaday baan isu soo baranay waa u tagay alxamdulillah rabbil caalamiin waa hooyaday haddaan nolol fiican bay ku noolaayeen way fiicnaayeen
afar ciyaal haysatay laba wiil iyo laba gabdhood oo dhinaca aabaha ah waxa jirtay anu waa ka soo noqday maadaama aan hooyaday bartay waan ka soo noqday waligay waan wada xiriir jiray imaaraadka anoo jooga anoo sidii kala ah anoo xumaantii iyo qurunkii iyo fuxshigii ku jira baan la soo xiriiri jiray hooyada oo lacag soo diri jiray ilaahay waa iga saxaya ama xalaal aan ku soo helo ama xaraan aan ku soo helo hooyaday lacag waa u diri jiray subxaana ilaahay subxaanahu wa ta'ala ben sheeg maayo oo xaramkii baan jooga walaalayaal wax kasta oo aan hooyaday u diro caqabad waxa ku noqday adeerka odaga adeerkayseen oo hooyaday la taagnaa waa adeerkay waxbaa na dhex maray ciyaalkaas aad waxa weeye walaalahay maanta isagana aabbu u yahay anigana waa walaalahay ma kala go'i karo laakiin waa nasiib darro nin weyn waa 70 jir waxaanu isku jiray waxay ahayd wax kale ma aysan ahayn hooyaday si fiican u dhaq iyo saan doonaan ka yeelaya waana sidaan doonaan ka yeelaya wax allaale iyo waxaad u soo dirtana waa cunaya hooyaday waxba ma qabsan karto madaxii buu ka waalay wuu wareeriyay sidoo doonu u galay waa u tagay ugu dambayn Puntland baan keenay boosaasan keenay 2 jeer caruurta macal waa soo kaxay 3 jeer baan keenay 3 jeer baan Puntland keenay oo reerkayga baray oo familygayga baray oo dadkii ugu yeeray iyadoo xaaladdu isaas noo marayso oo la isbartay oo xaaladdu ay caadi yihiin ayaa walaalayaal waxa dhacday waanigii Dubai baan aaday Dubai waa wada xiriireynay hooyada waxba wax allaale iyo waxaan maartay kala qarsan jiray ma jirto hooyaday dib kasta ay ku jirto iyo xaalad kasta ay ku jirto xataa caruurta ay sheegtay wax allaale iyo waxa sameeyo waa garan waay ninkii maxaad ku samaysaa sideed yeeshaa maxaad yeeshaa walaalahay baan u tagay waxaan idhi walaalayaalo hooyaday hadda kan ugu yari waa 25 jir waxaan idhi walaalayaalo ilaahay baan idinku dhaariyay hooyadii in la dhashay anigu curadkeeni baan hooyadii idin dhashay oo anigana i dhashay oo hooyadeena ahayd sidaan aqli ma ina ku shaqaysataan xataa iyaga caruurtooda uma shaqayso iyadaa shaqayso hooyaday baa shaqaysa xaram marka waxaan idhi waxaan sidaan xalmiya wayba ku rabaanba saasay u rabaanba inay sidaas noqoto bay rabaanba waanu adkaysan waay si kasta waan ka soo furfuri waay anigu inta badan dibadaha jiray lacag baan soo diri jiray lacag allaale iyo lacagtaan u diro hooyaday waxay ii sheegtay hooyaday macaan wallaahi inaan been idin sheegin masaajidka ilaahay baan joogaa inaan been idin sheegin oo waxba ku daray wax walba oo aan u sameeyo isaga dhexda u taagan $1 kama uuma reebo hooyaday maskaxiyan ayuu u waal akhiran walaalayaal akhiran bay dhamaantay waaniga hawsha ka baxay ilaahay iga macinay subhanahu wa ta'ala bay dhabay hooyaday degantay bay dhamaantay meesha kaamka ah meel fiican bay deganay oo ka fiican oo ka habaysan waaye halkaasaan ku dhaqaalay jiray wax walba wuxuu u taagan yahay asaga u taagan jaad buu cunayaa waa nin weyn ma tukanayo ma soomayo 24 saac jaad iyo baalkii iyo tubaako wada waxaan ku iraadeero waa la hadlo waxaan ku iraadeero sidaan si ma adduunyada waa laga tagayaa anigu waa toobadkeen oo anigii baa hadda hawl ku jiray baa ka toobadkeen adeero adiguna toobadkeen ilaahay baa kugu dhaariyay toobadkeen adeerkay waa iga diin wuxuu yiri adeer anigu waxayga aniga khaas faraha ka qaad iska daad laguma dirsan hooyaday markaan aado hooyo waxaan maxay tahay sidaan maxay tahay noloshaan maxay tahay ay ugu tiraahdaa hooyo muslimka adduunka lagu imtixaamay hooyada waa qof dulqaad leh waxay tiri hooyo muslimka adduunka lagu imtixaamay walaalayaal iyadoo ay saas jirto ayaan wax kasta oo iskala si kasta 2 jeer 3 jeer baan bay daradeed u tagay mar waan soo kaxayay gurigeyga keenay markiskan keenay waa ila joogtay 8 bilood ba ila joogtay intaan xaramka soo jiray oo xajka soo jiray ayay kulligood la soo hadlay telefoon intii qabsadeen hooyo ma nancday annaga miyaad nancday caruurtaadii aaway dadkaadii aaway hadda ilmaha aad aragteen hooyadood way ka dhaqaaqday waxa dhalay wiilkaas la sheegayo oo xanuunsan ma garateen
walaalayaalow ilaah baan idinku dhaariyey inta uu ninkaasi dhib i mariyey inta uu rafaad i mariyey inta aan hooyaday kala maray ilaahay waa ogyahay subxaanahu watacaala ilaahay waa ogyahay subxaanahu watacaala wax kasta si kasta yeelay haddadaas waxa weeye wax kasta waa sameeyey heer baan gaaray markaan ka kaxaynaya xataa lacag buu iga qaatay hooyaday buu lacag iga qaadanaya inay ila joogto oo aan halkaa ugu khidmeeyo walaalayaalow ilaahay baan idinku dhaariyey bal waxaas ilaah baan idinku dhaariyey ma wax loo dulqaadan karaa walaalayaal marka hadalku yuu ila tegin waa ila taraaraxay waxyaabo badan baa jira aan qara'ayo ciil baa haya ciil baa hoosta iga haya wallahi been idin bisheegayo hoosta ka gubanaya ciil baa haya waxa weeye waa la iibiyey ninkaasi soo door iga yaal ninkaasi odagaas adeerkay ah ilaahay ka baqi maayo waa nin weyn gabadhiisa xataa waxay tiri wallahi aabahay salaadii inuu tukado way iga diiday bat ninka noocaas reerkiisa iyo familigiisa baan isugu yaal bayna baan tagay reerkiisa iyo familigiisa oo dhan baan isugu yaal waxaan ninkan hooyaday ama nolol ha saaro ama anaa ka xaysanaya ilaahay baan idinku dhaariyey waa ka xaysanaya anaa ka xaysanaya baan ku yidhi wuxuu yidhi ظلمكم ما فعلا أنا وهذا هويدا عاصكم غضب سيدا كل عيسى إن الحرم كيجو سيدا كل عيسى بالله عليك إيش إذا كان ويدين يا صلاة على الحرم كيجو يلا يقبل يا دار هويدا عاصكم غضب وحكستان اسكتي وحكستان اسكتي ويجدي دي هويدا أخيرا قبل ولا شيء waxaan hooyaday maxaa ku dhacay sidee wax xaaladda iga war wallahi xaramka ilaahay baan joogaa waxay tiri axmedow hooyo adeer baa wuxuu qabtay bet maskaxdeeda adeer baa wuxuu qabtay aabahay baa wuxuu qabtay waa aabahay baa wuxuu qabtay bet sidaas ahaa lagama fujin karo si kasta haddaan yeelay wax kasta haddaan sameeyey nolol fiican bay ku noo anay ila joogto waxaan cunay ila cunays markiska ila joogto dadkoo dhan baa ogaa reer markiis baa ogaa cid kasta way ogeen jiif iyo joog buu diiday carruurta ku soo diraa mar isagaa la soo hadla mar waa u soo hanjabaa mar wuxuu doonuu soo shubaa waa nin weyn oo 70 jira inuu hooyaday ku tuugsado buu rabaa waradeerow ilaahay ka baq waradeerow adduunka waa laga tegayaa waradeerow adduunku maalmo yar weeye waradeerow abtiyaalow idinkuna nimanka kale toon la hadlayaa waxa weeye nimankii adeecadda gaarsiiya nimanka la yiraahdo oo ka soo duubay abtiyaalow horta aniga igama xishoon abtiyaashii baatii xaasha wujud abtiyaashii baatii reer koonfur galbeed siday u dhan yihiin waa abtiyaasha siday u dhan yihiin reer koonfur galbeed waa abtiyaashay abtiyaal ma iga xishoon weydeen abtiyaal ma ila soo xiriiri weydeen maana wax idinka diiday abtiyaal bal intaa sidaa samaynaysaan waxaad samayseen hooyaday baad u tagteen ninkii aanu istagaalsanayn ee aanu isbahalkaysanayn baad intaad tagteen baad soo duubteen maba xuma waxaad ku soo larteen heesihii iyo qurunkii iyo balaayadii aan ilaahay uga toobad keenay 6 sano ka hor baad ku soo darteen idinkoo ku raadinaya fayuus iyo kaalmo ku raadinaya war hooyaday kaalmo uma baahna kaalmo ilaahay bay u baahanta hooyaday anaa u nool wax walbana anaa u qabanaya hooyaday anaa u nool anaana wax walba u qabanaya kaliya iga garbax abtiyaalow iga garbaxa ilaah baan idinku dhaariyay anigu nin reer Puntland baan tolkay iyo ehelkay khayr Allah siiyo way garab taagay laakiin idinka waxaan idin sheegayaa hadday reer abtiyaasha ibaatay waxba idin oran maayo iga garbax abtiyaalow way dhabaan idinku imaanaya waa idin imaanaya iga garbax sidaas u simaa hooyaday quraan baa saaray anaa soo kaxaysanay isiiya kali waxba idinka ma rabo wax kale to ahay qabanine isiiya hooyaday igu soo wareejaya anaa weliga haysanaya anaa haddaan ka horeeyana iyadu hay aasto haddii ay iga horeysana anaa aasaya abtiyaalow iga xishooda abtiyaalow xeer muslimnimo kuma idin naasabay bini aadantinimo ma idin naasabay
فكرتين هو يدي ما كنت وصنيسان oo wax leegin lacag halaydu ku siiyo abtiyaalo gaxshooda abtiyaalo reer koonfur galbeed baa la hadlaya gaarsiiya u sheega hadda xisoonaysaan oo wax isku falaysaan oo dad islaamtiin iga qabta ninka iga qabta ninka iga qabta لا إله إلا الله محمد رسول الله والله وحنت كذا قرنا عسر ما قرنا دور ما قرنا إلى حلي ما نسع على الحمر والحق يلا بو أركي هل دولار وما تري كره هاي هل دولار والله هل دولار محاكية غير وحن قرنا هذا هاي تسع طبعا أنت صوت تلفون بارو قري تلفون الذي وساعة قاتل مد والباو قاتل يا كاف قاتل يا لعقته كشفني حتى هو الموبايل كسر لا استعمال لعقته الله ولا يسلو كرم وقفسك مسكينة ضوا هو حتى نقول هذا سوى يقول شكيين والله دوبا يا ويل كاجي بالله دوبا أنا حلا هو يده والله وحيقول شكيين إني دوبا يا وأنا جاي صدر يا به هو السوشيال ميديا ما تقع السوشيال ميديا ما تقع وردول ميجو ما فعلا وردول ميجا هالس كداي وردول ميجا سومالي ورس إلهي كبر ورأبتيالو نكا أي خبط أضجع ورأبتيالو ويجيه ولبا هيركسو ويجيه تبرر كدش هيركسو ويجيه والله بالله تالله إيجا خبط أبتيالو أروح بيت الأوران ماي حمان إذا المقور أبتيالي باتين إلهي بيتك كين دليل حمان بان يقورا يا إلهي با إيجا دليل ربنا تلان يو ركوفر قلبت بايلا يسوق كيدر واحد من مقامه لكن رشة إيو الرفاتك إيو سلطة وهي إنا بحد شان وحل قادم كرمان ولا ليال تنقلوا تاني شيء يا وحوي تنقلوا أني شيء يا وحوي ولا ليال أنا قوم مالين جوجا حمر وأنا قوم ماشي مركز كجوجا وحبرني أيا واحد عضي ويلك هذا اللي ليا وحنوسية ويلك حنون كلام ما هيو حبارك هو يأخذ عين حنون كلام يأخذ عين مش وحوي هو يكوف على جري markuu shaqaysto lacagta u diidi jiray suudonu ma garanaysa u socon jiray isheeda u baqda waxa dhacday walaalayaal iyadoo oo 6 ciyaal u dhalay soo waa wiilkaas aniga walaalkay oo u dhashay oo hadda leeyahay waxaan u sheegay oo aqalku ku 6 caruur ay u dhashay iyadoo wuxuu karinaysa oo jikadii ugu jirta oo gabdhihii xataa ay joogaan walaalahaya oo iyagu aysan waxba sameeyeen ayay waxay sameeyeen waxay sameeyeen boo intuu masaar soo qaatay masaar wallahi been meeyda sheegay xaramka ilaahay baan joogaa masaar intuu soo qaatay boo halka madaxa dhigta iyo halkaas oo ka dhigtay markaas waxay sameysay 5 qodob baa la tolay hooyaday oo dhig baxday baan xamar ka duulay bayna baan ugu tigay wiilkii oo xiran baan u tigay oo silsilada ku xiran hooyo maxaa ku dhacay seewa hooyo ninkaas ay dilay isaas dhacday dibka waxba uma arag calool hoos gubtay caloosh urka ka gubtay laana waxba ma sameyn karo Allah soo walaalayaal u daayay intaan hadlayo idaay please intaan hadlayo idaay walaalayaal waxay soo wicin kadib soo khayr Allah idin walaalayaal xagee lagu arkay qof hooyadii soo korisay oo inta soo leekaysiisay oo caruurtiisi asaga u dhalay korinaysa intuu masaar soo qaato madaxa ka dhufto xagee lagu arkay ilaahay baa idin ku dhaariyay isha Soomaaliya isha xagee ku artay wax ma dhaqan ba diin ba waxaas walaalayaal wallahi billahi inaana kelmad baan ka sheegay xaramkii baan joogaa ilaahay baan hortaaganahay wallahi inaana beeridi sheegay xalay maseexan laba indhoodii gamas indhaha ma kala qaadin maanta wax Allah la xisbiyaa garan waay si Allah la yusaado hadnaan garan waay laakiin ninka in Allah hadlo war dad kaleena wax sheego war hooyaday oo saa u dilay oo saa u rafaadiyay oo aan baan ku xan ku iraadeero ku caliyo adeero xaaladaada wax ka bedel waayahay waa ka bedelaya mar walba kama bedelo kama soreeyo hadda indhihii buu ka jiray waa waayeen waa ninka odaga caruurtii gabadhii ka tagtay wiilka way ka tagtay meel kale la joogtaa nin kale guursatay
gabadhii caruurtan dhashay hooyaday buu wuxuu uga dhigay hooyaday buu dusha ka saaray culis oo ku waalay oo madaxii ka hooyaday madaxa maskixiyan caadi ma isagaa sidaa ka dhigay wallaahi waa xanuunka isagu uu ku sameeyay waa walaalayaal anigu nin caasiba عاسر هي لكن أنا العاسي هي عايشة وجود سلام بس تعبان جدا بيسي ما كجرا والله تعبان جدا بيسي ما كجرا ولا ليا ها عبوة واحد لقى حشود واي واحد سميين هربتك يقول سميين واحد لقى حشود أنا جاي يسوي عم بيع ويديا والمحاوي نكاس حدنا دمله أنا بينما وإيمانه يا إن شاء الله تعالى وإيمانه يا هوي إيمان دور إن شاء الله تعالى كل سوشيال سوق قاري ماي لكن وإيمان إن شاء الله تعالى هوي وأكو إيمانه يا ربتي هذا نوع قرن خسنين ربتيو أنا هدي أن قرت الرأي أو أرض لي يعني قالت كيجو أو والله يجا كين قبرية إهل بالله فاميلي بالله والله يجا كين قبرية إذن كان يقبل لكن بليز odagaas aad u jeedaan oo saay galay oo dagaalkuna dhex maray oo hooyaday soo door ka yeelay oo aad u arkaysan waay kaana dar ka baqay wallahi walaalayaal ma garanayo waxaan ku hadlo ma garanayo san ku hadlo waxaan iraado ma garanayo hooyo qaba ha hooyaday buu qaba walaalayaal waa nin hooyaday qaba oo dhiigga halkaas uu ku qaba waa run haddana wuxuu rabaa inuu gaarsiiya aad bay ugu maasiyeen wariyaal fara badan oo reer abtigaya oo soo wacay xal aad baan ugu mahadcelinaa bushra muhayb ninka la yaado bushra maxamed ninka la yaado dad badan oo bay soo wacay wariyaal waan xalay oo dhan la hadlay waan u mahadcelinaya reer abtigay hal qof haduu xumaaday dadkoo dhan inay dadku wada xuma laakiin waxaan rabaa ninka iga qabto islaamtiina kala qabto كيسارة حدو السبو قلبية هو يضي أنا حيصنا يا فراحة يقاضي أنت أسكلي عنك لقاك لكن هو يضي إنه قلت ورنا يا هل كاس أساس اللي يلي وحلا أقبل كرمه بركة إن شاء الله تعالى ولا ليال واد ما سنتين إن شاء الله تعالى أنو كليب بان صور دغ دونا ugu dambeyn waa ka baxaya walaalayaal waa ka baxaya